waayahay qodob kale oo isaguna muhiim u ah markaas business model and strategy-geena ayaynu imikana geli doonaa qodobkaas markaa waxa weeye customer relationship waynu aragnaa ama waynu ognahay aqoonsan online academy wuxuu u adeegaa bulsho fara badan oo kala duwan oo meelo kala duwan joogta bulshadaasi way nala soo xiriirayaan meelo kala duwan bay nagala soo xiriirayaan qaar wayna soo wacayaan qaar waxa weeye whatsappkay nagala soo xiriirayaan qaar facebookay naga soo reach gareynayaan oo ay nagala soo xiriirayaan waxaynu u baahanay dadkaas markaa noocyada kala duwan leh ee waxa weeye kala da'da kala duwan leh ee kala aqoonta duwan leh inaan si fiican ula xiriirno si fiican u soo dhaweyno relationshipka aynu dadka aynu u adeegayno aynu leenahay waxbaynu baraynaa ama waxaynu gaarsiinaynaa waxa weeye trainings ama waxa weeye koorsooyin baynu gaarsiinaynaa inuu macaamilkeenaas iyo relationshipka aan la leenahay uu fiicnaado ayaa iyadoo muhiima markaynu kaa gaadhno yoolkaa waxa weeye aan ka dhamayno waxaynu ku guuleysanaynaa strategy-gii uu aqoonsan online academy lahaa inaynu waxa weeye ka midho dhalin customer relationshipkeenu markaas uu fiicnaado waxyaabaha aynu doonayno inaynu dul istaagnay halkan inoogu qoran waxaa ka mid ah our customer relationship must be friendly dadka nala soo hadlaya ayna soo wacaya waa inaynu si degan oo waxa weeye saaxiibtinimo leh sida ay saaxiibadeenu kale yihiin ama sida inagu markaynu shaqada joogno aynu wada macaamilno inaynu la macaamilo oo waxa weeye aynu ugu adeegno qof markaa waxay nala soo hadli karaa wax ku dhaceen qof waxa weeye aaladii ama waxa weeye programkii uu isticmaalay casharada ku dhiganayay waxa weeye cilad kaga timi qof internetka ka xun yahay nala soo hadli kara qof waxa weeye delay ku dhacay oo waxa weeye in la register gareeyo oo markii fiigii laga qaaday fasalkii lagu daro oo ka habsaamay baa nala soo xiriiri kara iyadana waxaynu u baahanay markaa inaynu qofkaas hadduu isagoo cadaysay nala soo hadlo inaynu dejino oo dhulka u dhigno waxa weeye aynu u wanaajino deedna aynu markaa friendly noqono dadkuna waxa weeye ay si fiican markaa inoo jeclaadaan markayna jeclaadaan bay si fiican wax inooga baranayaan maadaama aan leenahay dadkii wax baraynaana waa inaynu barnaa oo ay ka mid noqoto waxyaabaha dadka barayno sida dadka loola macaamilo marka waxa muhiim ah oo qodobkeena labaad halkan aad ku aragtaan waxaynu u naqaano personal we should be personal dadkan aynu waxa weeye la xiriirayno waa inaynu garan karnaa qof kasta oo waxa weeye akaademiyada ka tirsan qofkii waxa weeye tusaale ahaan bilka hore aad diiwaan gelisay ama waxa weeye shan cisho hore aad diiwaan gelisay qofkii waxa weeye shalay hore ku soo cawday ee waxa weeye delayga ama habsanka in fasalkii lagu daro ka habsaamay ee waxa weeye soo cawday qofkii waxa weeye ciladu haysatay ee waxa weeye casharada inuu fahmo ciladu ka haysatay ee waxa weeye soo cawday qofkaas oo dhan markii nala soo hadlay ee waxa weeye call inoo soo diro ama message inoo soo diro waa inaynu naqaanaa markaa qofkaas magaciisa waa inuu saf galaysan yahay waa inaynu markaa strategy-ga iyo qaabka aynu waxa weeye doonayno inaynu akaademiyada ugu shaqeyno ay noqotaa in waxa weeye qofkaas aanu noqon qof qariib tusaale wayna soo wacay waa inaynu qofka contact numberkiisa haynaa informationkiisa waa inaynu haynaa yacni wixii uu ka cabanayay deedna waa inaynu qofkii markii ina soo wacdo halow hebel soo dhawow walaal cabashadaadii ka waran makuu hagaagtay arrinta noocaasi marka waa inaynu list garaynaa oo register garaynaa markaa cabashooyinka iyo wixii magaranaysaa complaintisa qofkii ay waxa weeye uu ka soo cawday si markaa aynu personal oo noqono oo qofkii uu fiil gareeyo markaa inuu akaademiyada ka tirsan yahay qofkii laba cisho ka hor nala soo hadlay ee ka cawday waxa weeye inaanu buuggii waxa weeye ama aanu hore usoo gaarin uu wax ka akhrisanayay ama waxa weeye fasalkii weli lagu darin ama aaladii waxa weeye wax ka xumayd aan weli wixii lala dhammayn waynaynu garan karnaa runana hebel shalay waadigi waxaa ka cabanayay ka waran marka qofkii wuxuu fiil garanaya akaademiyadii marka aynu ka tirsan yahay customer relationship-keenuna ama customer experience-keenuna markaa uu fiicnaan doonaa oo waxa weeye uu hagaagsanaan doonaa qodob ku xiga ayaynu isu gudbi doonaa ayaynu isu geli doonaa